waxaan aad ugu faraxsanahay kulankan maanta halkan ka dhacay oo lagu soo gabagabeeyey shir socday 6 maalmood oo si qoto dheer loogu lafaguray hanaanka doorashooyinka dalka 2021 iyo siday uga waacatay dowladda dhexe sidii la rabay inay u hogaamiso taas oo ay u arkeen murashaxiintu in haddii aan loo istaagin in la saxo dariiqaas qalloocday dalka ay geli karto xasilooni la-aan siyaasadeed iyo wax aan la garan karaynin meesha ay ku dambeyn doonaan si aan taas ugu dhicin murashaxiintu xilligii lasoo dhaafay waxay aada iyo aada uga hadlaayeen tillaabooyinka habboon ay tahay in la qaado ayadoo laga faa'iidaysanayo khibraddii soo martay murashaxiinta iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantood iyo doorashooyinkii soo dhacay laga soo bilaabo 60kii ilaa hadda taas oo ay u caddaatay mar walba oo dhaco boob maxaan ku idhaahdaa doorasho natiijadu inay ahaato natiijo inay ahaan jirta natiijo aan fiicnayn maadaama aan wada ognahay dadka Soomaaliyeed wacyigoodu inuu u bislaaday dowlad madani ah ilaalisa xuquuqda ilaalisa sharciga midaysa dadka Soomaaliyeed waxaan laga maarmi waayey murashaxiintu inay cod dheer ula istaagaan halkan ay u sheegaan dadka Soomaaliyeed inaysan ku qanacsanayn sida dowladdu ay u hogaaminayso arrimaha doorashooyinka waxaa sidaas oo kale murashaxiintu ay hoosta ka xariiqeen in xilligii lasoo dhaafay ay ku ixtiraameen dowladda xilkeeda ayna mar walba diyaar u ahaayeen inay ku garabsiiyaan siday u guda lahayd waajibaadka qaran ee la saaray mar haddii la gaaro gebagabadii xilkii doorashada la raba in la aado doorashadu waa inay u dhacdaa si hufan oo lagu wada qanacsan yahay kalsooni leh ayadoo la raacayo sharciga iyo dastuurka iyo soo jireenka taariikheed ee dadka Soomaaliyeed u leeyihiin doorashooyinka hufan sida laga dhawaajiyay waxaa la filayay dalku inuu galo doorasho qof iyo cod ah laakiin nasiib darro taas ma dhicin waxaa loo laabtay nidaamkii hore haddana nidaamkii hore ma naqanin mid qanciya dadka murashaxiinta ee raba inay galaan doorashooyinka bal wuxuu noqday nidaam lagu kala yeelay dowladda meesha joogta iyo madaxdeeda taas oo aan ognahay dowlad haddii la dhisay inay u baahan tahay kalsoonidana waxay ka timaadaa broseska dowladnimada sidaas darteed waxay soo jeedinayeen talooyinka aad aragteen oo la soo jeediyey oo kulligooda ujeedadoodu ay yihiin in laga waantoobo dhaqanka aan wanaagsanayn ee kasoo horjeeda dimuqraadiyadda kasoo horjeeda dowladnimada kasoo horjeeda wada socodka iyo is-aaminitaanka dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo dadka halkaan isugu yimiday ma wadaan colaad ma abaabulayaan colaad waxay abaabulayaan nabad laakiin xaqiiqada ay gaareen waxay tahay hadday ka aamusaan oo sidaan ay wax ku socdaan dhibaatada imaan karta inaan laga aamusi karin marka dadka Soomaaliyeed in looga digo loona istaago sidii looga badbaadi lahay tariinku inuu darbiga ku dhaco baabuurku darbiga inuu ku dhaco diyaaraddu inay meel khatar ku dhacdo dadka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay waxay la dhibaatoodeen cadaalad darro dulmi ma aaminsanin inay xal tahay weli in meeshii la aado waxaan aaminsanahay xilligii soo dhaafay inuu noogu filnaay dhibaato iyo kala irdhoobid iyo burbur maanta waxaan u baahannahay si aan uga soo kabanno in la abuuro kalsooni taasuna waxay ku imaan kartaa in la ilaaliyo sharciga in la ilaaliyo nidaamka doorashooyinka haddaba dadka Soomaaliyeed oo dowladnimada aada u jecel waxaan aada iyo aada uga xunnahay in maanta lagu guda jiro in la marin habaabiyo la boobo doorashooyinkii dariiqeedana oo muuqda derbiyadana lala soo istaago lagu fahmo taas waxaan leenahay lama aqbali karo suuragal ma aha doorashada dowladdu waa inay dhexda soo dhigtaa guddiyaduna waa inay ahaadaan guddiyo laga tashaday lagu kalsoon yahay dad dignity leh sharaf leh dhexdhexaad ah Soomaalidu taqaano cadaalad samayn kara talooyinkii aan la wadaagnay ama ay nala wadaageen dadka aan la kulannay ee kala duwan waxyaabaha aan ka faa'iidaysanay waxaa ka mid ah oo runtii aada iyo aad aan raba inaan hoosta uga xariiqo gaar ahaan si gaara waxaan rabaa culimmada inaan soo qaato mithaal ay soo qaateen oo ah haddii qofka garsooraha laga shakiyo
haddii qofka garsooraha laga shakiyo qofka loo garsoorayo xaq waxa uu leeyahay inuu yidhaha garsooraha waa ka shakiyey. guddiga doorashooyinku waa garsoorayaal, marka horena shuruudaa lagu xushaa. haddii cid ka cabanaysa ay jirtana waxaa lagu khasban yahay in la dhagaysto. annaga guddiga doorashooyinka habka loo xilay kuma qanacsanin. waxaan aaminsannahay sharciga in loo jebiyey, ujeeddo gaara in loo sameeyey. marka waxaan soo jeedinaynaa in la bedelo gebigoodaba. maanta qofka kursiga ugu fadhiya kan berri u soo socda waxaa sharaf iyo wanaag ugu jiraa inay xaqa u laabtaan. waxaan rabaa mithaal yar inaan idiin sheego. sayid cumar radia allahu canhu wa ardaah waxyaabaha u dardaarmay waxaa ka mid ah saxaabada, haddii aa khalad gasho oo aa ogaatay inaa khalad gashay, khaladkaa ka laab. sababtuna waxa waaye inaa khaladka ku adkaysatid iyo inaa xaqa u laabatid. xaqa inaa u laabataa fiican, ayadaana dadnimadu ku jirtaa. annaga dowladdu hadday sharciga ilaalisay oo heshiiskii ilaalisay ma haysano, laakiin hadday jebisa ka warrama. waxaan ka hadlayna waa sharci, waa heshiis. waxaa ku heshiiyey dowladda ku-meel gaarka dowladda iyo waxaa ku heshiiyey maamul goboleedyadii. waxaan rabnaa heshiiska siduu ahaa in loo fuliyo. dhaqan waxaan u yeelana Soomaali haddaan nahay heshiis in la galo haddana meel la iska dhigo. arrintaas waxaa ogaateen dhaawac weynaa dadka Soomaaliyeed ka soo gaaray. arrin fiicanna ma aha. waxaa la rabaa wixii lagu heshiiyo sida loogu heshiiyo in loo fuliyo. dowladnimada asaaskeeduna waa wax lagu heshiiyo la fulinayo, wax kale ma aha. marka annaga waxaan rabnaa sharciga in la ilaaliyo, sharciyada in la ilaaliyo, heshiisyada in la ilaaliyo, doorashooyinkana si nabada oo xalaal ah oo xura oo kalsooni leh in lagu qabto. waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo. doorasho in la qabto horta maxay u baahan tahay? number 1 waxay u baahan tahay kalsooni. kalsooni miyaa jirta hadda doorasho lagu galo? doorasho aan kalsooni lagu gelin maxay keeni kartaa? bal ii sheega. fawday keeni kartaa. dalkan miyaa fawdo ximbaari kara? waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan eray bixinta cusub, ficil colaadeed iyo eray colaadeed. dowladdu waxay isku dartaa ficil colaadeed iyo eray colaadeed. say isugu dartaa. ficilka colaadeed waxa waaye inay garab marto sharciga si ay wax u boobto. ficilka colaadeed kaas waaye. erayga colaadeed maxaa waaye? raalliga ahaada waa fududaanaya. dhalinyaro masaakiina oo waxaan macno lahayn loo sheegay oo dadka caaya la leeyahay. billaahi calaykum, dowlad rabta dadka inay ku xukumto caay ka warrama. ya dowladda waxaa la rabaa, dowladdu sideedaba akhlaaqay u taagantay, ogaada. annaga dad muslima aan nahay. nebi maxameda madaxnoo ah soo ma ah. nebi maxamed wuxuu yihi inamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq. inamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq. wax kaleba layma soo saarin. ogo meeshaas waxaan dhihi karnaa salaadu waa akhlaaq, soonku waa akhlaaq, zakadoo bixiso waa akhlaaq, dhaqankoo bixiso waa akhlaaq. laakiin nabigu muxuu u yihi inamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq. macnaha ay leedahay ummatu maxamed qofkii ah looma ogola dad inuu caayo. hantidii qaranka, canshuurtii dadka in lagu bixiyo, madax in lagu caayo, aan very sad. runtii wax aada looga xumaado. dowladda waxaan ugu yeeraynaa arrintaas ha joojiso. cambaigna la ogol yahay. waxaaga banaanka soo dhigo, waxaaga banaanka soo dhigo, laakiin caayo madax laguma naqdo. gebagabadii marka waxaan rabaa inaan tago madaxweynaha saaxiibkay maxamed cabdullaahi farmaajo. meeqa jeerow dalkan doorasho ka gala baliya? 2 jeer iyo midka saddexaad oo asiga madax u yahay. labadii doorasho horreysay midna anaa joogay, midna madaxweyne xasanaa joogay. madaxweyne waxaan ku weydiihaynaa wax ku dhiba miyaa aragta? ya madaxweyne waxaan ku leenahay doorashada dhexda noo soo dhig. dagaal miyaa taas? tabeelahaaga maa la diiday? su-aashaasaa loo soo dhiibay.
annaga fiirsha madaxweynaha wuxuu naga haliyo dhan ragga anaa ka qaadanaya waa ka cafina wixii hadda ka horreeyay waxaan rabnaa doorashadana soo dhex soo dhigo bas ka warrama warkaas cabdiraxmaano okay soomaali maanta iscafisay u baahan tahay madaxweyne maanta iscafisaa loo baahan yahay bannaanka u soo bax dadka la hadal doorashada dhexda soo dhig dadka isu keen aan doorasho wada galna haddaa guulaysto ku taageeraynaa haddii lagaa guulaystana waa lagu karaamaynaa waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan u laabto